وعشر كان أفراد ام اس اكسل. عشر كان ما انت اكسل موف سيلز يعني كبلاينا drag and drop copy or cut and pasting delete data add cell delete cell and do redo intaasaan qaadanayna insha allah. Markaad rabtid inaad move garayso cell ama meel shu yaala ah ka qaado meel kale aad geyso kow waxaad samayn kartaa drag and drop. Drag and drop waxaa loola jeedaa marka hore waad dooranaysaa, markaan doorto haddii aan rabo inaan qaado meel kala geeyo calaamadda markay afartaas ay yeelato afartaa gees ay yeelato aan qabanaya oo anagoo left kaliya haya left click markaan qabto then waa ka waan qaadaya waxaa la drag and drop alla then waa ka halkaasaan geeyo haddana waan soo celin karaa saa loo qabanaya waxaan hayaa muuska dhanka leftiga haya kadibna waan sii daanaya marka drag and drop waan aragnay. Waxaa ku xigo copy-na isticmaasho ama cut isticmaasho kadib basta aad dhahdo qaabka loo sameeyaa qoraalkooda dooro kadib waa copy garin kartaa right click leedahay kadib waxaad dhahaysaa copy ama waxaad isticmaali kartaa control c qofkii ama su'aarka soo bartay ama yaqaano control c iyo control v ma dhigi doonto. Okay waan copy gareynay kadib halkaan right click dhahayna kadib waxaan leenahay paste qaabkaasna waa samayn kartaa paste markaad dhahdo just like that qaabkaasna waa u samayn kartaa oo meesha yaale meel kale geyn kartaa qoraalka haddii markaasi control z aan dib aan u celino weli copy ayuu noo hayaa right click aan leeyahay mar kale paste markaa imaatid ilaa dhowr nooca kusoo baxayso. qaybta ugu horeyso waa paste oo qoraalka dhan saas loo paste garan doonaa. qaybtan kale waa value oo colorka la reebaya. qaybtan ku xigto asagana waa formula. qaybtan ku xigto waa transpose waa qaybta ugu muhiimsan aan dhihi karaa because qoraalkiis marka hore waad aragtaa siduu ahaa names role iyo salary sidoo kale soo jeedid waxaa waaye qaabkan ayuu u sameeyay transpose alla marka aad muhiim u tahay meel badan waa ku isticmaali kartaa. Okay qaybta xigtuna waa formatting. Formatting waxaa loola jeedaa kaliya wuxuu ku soo qoon doonaa colorka bas ayuu ku soo qoon doonaa formatting marka right click aan dhaho then kan ugu dambeeyana aslinkii ku sheegaya. Okay inta aslinka malayna sida loo copy gareeyo iyo sida loo paste gareeyo iyo noocyaha uu markaasi paste uu leeyahayna waa isla aragnay. Okay waan cut gareynaa markaan noo dooro qoraalka dhan right click dheh kadib cut dheh ama waxaad isticmaali kartaa control x markaan cut gareeyo halkaan ku paste gareynaa right click aan leeyahay kadib paste aan dhahayaa waa ka qaabkaasna waa samayn kartaa oo meeshii yaalo waan ka qaaday meel kale aan geeyay markaan soo celinayna control z isticmaali doonaa. Okay hadda waxaan aragnay drag and drop iyo copy cut and pasting. Delete data waxaa loola jeedaa haddii aad rabtid qayb ka mid ah inaad delete garayso datadan ama dhammaanteeda kaliya waxaad samaynaysaa waa dooranaysaa then keyboardkaada delete ka taabanaysaa bis waa ka waan wada delete gariyay waan soo celin karaa control z aan dhahayaa waxaan dhahnay waa dooranaysaa markaad saa selection u samayso kadib waa delete ka taabanaysaa delete markaad delete keyboardkaaga markaad click siiso saas uu delete gareemaya haddii kaladaan aan bixin rabo maxaan samaynayaa labada cell isma dooro then waxaan leeyahay meesha waxaan furayaa colorka kadib waxaan dhihi doonaa no fill qaab sidaa ka fududna idin waa heli kartaa. Okay drag and drop copy cut and pasting delete data inta waa isla aragnay. Okay add cell wuxuu noqon karaa laba qaab inaad markaasi row column inaad kusoo darto horey aan soo aragnay column wax loola jeedo markaas row loobo markaan column kusoo dar rabo mid baan dooranaya kadib right click aan leeyahay kadib halkaan waxaan ku dhufan doonaa insert you see now uu kusoo darsamay ama dhaxda aan ku baraawayna right click dheh kadib insert dheh waa ka cell markaasi uu column ayaan kusoo darnay markaan row kusoo daraysidna kaliya waxaa leedahay row dhinacaysa tagaysaa right click aan leedahay kadib maxaa leedahay insert aan leedahay waa ka uu soo galaya marka labada dhinac waa isticmaali kartaa labada qaabbo waa isticmaali kartaa waa add cell delete cell marka aad inaad cell delete garayso salaad haddii kan aan rabo inaan delete gareeyo right click aan leeyahay kadib maxaan dhahayaa delete aan leeyahay waa ka uu baxaa isaga dhan qaabkaas oo delete gareyn kartaa control z aan leeyahay waa soo celinaya delete cell waa isla aragnay. Okay undo iyo redo maxaa loola jeedaa undo iyo redo qaybtahan oo quick access toolbar labadan qayb ayaa undo iyo redo loo kala lahaa. qaybtan waa undo sida u jeedid waxaa loo soo gaabiyaa control z qaybtan waxaa redo waxaa loo soo gaabiyaa control y. Okay aan sameyno marka undo iyo redo qoraalkan aan tusaale dooranayaa markaan doorto cut ayaan leeyahay markaan cut gareeyo control x aan dhihi karaa ama cut aan dhihi karaa hadda waan cut gareeyay kadib intaan ku paste gareynaa halkaan ku paste gareynaa control v ama paste aan leeyahay waa halkaas u yimaado. Okay haddii aan isticmaalo undo muxuu samayn doonaa qoraalka meeshiisu ku laaban doonaa saa ujeedid meeshiisu ku laabto haddii redo aan dhahana meesha kale kusoo laabanaya marka meesha waxaad samaysay ka laabo ama kasii soco labadaba adaa marka khiyaar u leh undo iyo redo ayaa la kala dhahaa. Okay cashirkeena maantaas haddana cusubtaan ugu soo biir wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.